بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu waxa weeye 16 bishii toddobaad 2026 waxaanu joognaa degmada Laasa Curdan. halkan waxaa ku kulansan waayeelkii iyo waxgaradkii magaalada degmada Laasa Curdan. kulanka iyagana wuxuu ku saabsan yahay hadal dhowr casho baraha bulshada ku jiray oo la wareejinayay wiil u dhashay Laasa Curdan oo reer Laasa Curdana oo dhalinyaro ah baa halkan ka hadlado wuxuu yiri Laasa Curdan waa Somaliland, anna Somaliland baan ahay. waxaanu waqooyi bari waxgaradkeeda iyo hoggaankeeda maamulka iyo ciidankeeda iyo bulshada reer waqooyi bari u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa hadalkaasi inaanu saliya raad lahayn, inaan waxba ka jirin. wiilkaa in fudaydu geeyey hadalkaa in wax laga qabto oo ciidankii halkan u dhashay xidheen oo la maqan yihiin oo tala qabiil lagu xidhay dal iyo dibad. horta kelmadaasaanu u beeninaynaa. waxaanu kaloo sheegaynaa waxaa laga yaabaa kilibka inay daawadaan dadaan taariikhda Laasa Curdan aqoon. halkan magaaladani waa magaaladii halganku ka soo bilaabay, magaalooyinka tiirarka u ahaa halganka bay ku jirtay. markay haysteen qolada waqooyigu dhulka oo dhan oo magaalooyinka hareer oo dhan haysteen, waa magaaladii laga abaabuli jiray halganka. marag waxaa geedkan fadhiyi jiray madaxdii dhaqanka, ilaahay ha u naxariista oo ugu horreeyo garaad Saleebaan garaad Maxamed, ilaahay jannada ha geeyo. waxaa kaloo fadhiyi jiray madaxda siyaasadda ee hadda nool oo marag nooga ah. waxaa fadhiyi jiray madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, waxaa fadhiyi jiray madaxweyne Indhasheel, waxaa fadhiyi jiray Korneyl Siigaale, waxaa fadhiyi jiray Faysal Faraalug iyo saraakiil badan oo haddeer aanan tirin karayn. geedkaa birdahaabaa gogosha u tilo ay ku shixi jireen. marna lagama walaacin, marna lagama caajisin. madaxda nool baa marag nooga ah. magaalo lagu maleeyo maaha waxaa. haddii waxaanu kilibka saa ugu daraynaa cidi aana aqooni dee qaadato wayba qaadan karaan. qofkaan ku aqooni wuxuu doono kuu qaadan karaa, laakiin kuwana yaqaanaa nagu malayn maayaan. warbixinta iyadaanu u shiraynay waa intaa. waxaanu ku wargelinaynaa reer waqooyi bari warkaasi waa been, waxba kama jiraan. Somaliland dadka iyo dalka midna maaha, noqonna maayaan. waxaanu ku gowracannahay oo aaminsannahay oo ogolnahay talada waqooyi bari iyo maamulka waqooyi bari iyo gobonnimada iyo xornimada. hadalka intaan dhaafayna waxaa ku daraya odayaasha iga dambeeya. waxaa kaloo nala jooga oo aad codkiisa maqli doontaan ninkii dhalay wiilka Cabdiraxmaan Maxamed Muuse, waa ka dhinacayga fadhiya, isagana codkiisa waa dhegeysan doontaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. sida odaygu sheegay wiilka horta aan dhalay Somaliland meesha la socdana deegaanka ana degan wax Somaliland oo ka jira ma jiraan. waa wiil yar oo khaldamay oo caruurnimo u geysay dhalinyaronimo, laakiin Somaliland ka shaqaysay mushahar wax ka qaatay wax asaas ku leh ma joogaan. meeshan weligeedna waxay SSC maamulka waqooyi bari waxaan u sheegayaa inaan wax halkan Somaliland ka tirsan ayna joogin. odayaal hadday noqoto, dhalinyaro hadday noqoto, waayeel hadday noqoto, waxgarad hadday noqoto, waa wiil yaroo iska khaldama caruurnimo u geysay. bismillahi raxmaani raxiim. waxaanu nahay odayaashii Laasa Curdan. kilibkan yar oo la yidhi wiil yar baa duubay oo reer baadiya baanu isugu nimi. waxaanu u sheegaynaa waqooyi bari iyo shacabkeeda wiilkaa yare waa wiil yar oo waa liyu geysay fudayd, wax ka jiraana ma jiraan. sida odayaashii hore sheegeenna Laasa Curdan xagga waqooyi bari meelaha ay ka joogto waa la yaqaanaa. wiilkaa yarina dee waa iska wiil yaroo miiri ahaa, dadkaas nobolada iska qaato waxay doonaan iska akhriyay weeye. waana wiil yaroo fudayd u geeyey. waa la xidhay. ciidanka iyaga jooga gumays baa loo dalbaday, aabbihii baa u yeedhay, reerkoo dhan baa wada ogaa. dee la qaadiyo la xidh, wax ka jiraana ma jiraan waxa uu sheegayo. ورحمة الله وبركاته.
sida odayaashu idiin sheegeen wiilkaas wuu khaldamay wiil yar buu iska ahaa oo reer baadiyaha dabadeedna midiyaha iyo waxaas iska arkay wax sal iyo raad leh maaha dee waxaas lagamana suurtoodo kumana yaqaano weligayo waxaanu ahaan jiray halkankaanu ahayn marka haddee arrintaas waxa weeye waqooyi bari saasaanu la socodsiinaynaa iyo wixii dee aanna garanayno dee qorshahayaga aan oqoon saasaanu la socodsiinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلام يا وضياشة وغوي بري دمان ومدة الصوماليات وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالة هدا نقال لنا الله صعودا ومقالو ينككسن تنهلقك ومقالة دي مدحضة خاتم الفديت واتي لقاء بابل التلي واتي مركي أدونكو تلعي وضدكو تلعي وخرسكو يرادي مقالدي أي سلقة كدك توي وحفديي أحمد علمي كراس وحفديي نشال فيصل فلالو مدح بضن إن السيقالي قرات سليمان لرديها ساقو بسوتاي ومقالي حلقك من كانوا غوني ما يقاني كي يقانا أنا وأبي وأولا نولين هذا المتورط فرقاتي يلقى إن مقالي حرق نتاي ويل كاير وويل يرو فدايدوكي فقاو سومالي لان ما هدانو سومالي لان رمونو مركي أنا مامل كلاهين بانو آدي عن سومالي لان ما أنت مامل بانو لان هاي نقول فلان ميدانو قانا عايسان هاي ميدانو أنو اسكالي هاي إن كستو آنو نسو قاري معيدة كنقدي ما يبولسكي ونقدي ما يهي ميد نقول فلان بانو لان وأنا نقول فلان يهي وانو ربنا وإيمان كانوا كفرنا ومقالة دي حلقة ويل كاير أبيه ساسوغبطي والله حري أديها أنو الصومالي لأن هي أبيه لكلية يعني ما سوغبتين فيه سقاودي بحيدك وما يشبه اللوغي وما يشبه اللوغي أدي مقالة البوليس فوقو كان قبل لها وحاليها يا هاي وقوي بري magaalooyinka hala keeno boolis ha laga sameeyo saldhigyo waanu u baahannahay nabadda waa loo baahan yahay ciidan waxaan kaga baxayaa hadalka annagu ma ihi somalilan shaqana kumali naloo kuma yimaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكوا سيدا odayaashii hore dhaheen yarkaasi wiilka yar wiil reer miyi iska ahaa oo miyi jooga magaalo wax kama aqoon telefoonada iyo dadka tiktokta wax dhigaya buu arkay facebook lagu raadsadaa buu maqlay waxaas oo facebook raadsaday ka dib nin magaalo wax ka yaqaana nin ciidan wax ka yaqaana nin siyaasad wax ka yaqaana nin maxaan ku raahdaa ay maamul la xiriira midna ma ahan nin Soomaaliland yaqaana barigi Soomaaliland hadda ku joogtay ilmo yar buu wiilkaas markaa wiilkaa fudayd baa u geeyey hadalka iyo dhalinyaranimo hadalkaasi waa hadal aan sal iyo raatoona lahayn waa hadal aan waxba kama jira waxa weeye magaaladana magaaladii dee halganka ku suntanayd nin walba waa garanaya ninkii garanaya waa garanaya ninkaan garanayna annaga u sheegayna haddeer inay magaalada halganka ku suntanayd ay tahay oo odayaasha taariikhdeedii ka warramay magaaladuna dee waxaan u baahannahay boolis in booliska nala soo xoojiyo in boolis naloo keeno maalin kasta gaari tignika oo furinta ku jira oo guumays jooga baa looga yimaado wixii halkan ka dhaca qabta wixii boolisku qaban lahaa oo degmooyinka iyo tuulooyinka naga mid ah boolisku way joogaan boolis baa u shaqeeya boolisku maxaan ku rahday u adeega oo amniga iyo wax kasta oo waxa yar oo kale qabanaya markiiba marka waqooyi bari waxaan leenahay booliska noo soo xoojiso booliska naloo keeno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم horta hadalku dee waa inta odayaashu yiraahdeen saaka waxaanu ugu soo baxnay halkan oo clipkaanu u duubaynaa waa intaa un wiilkaan waa sida looga hadlay oo waa wiil yar buu iska ahaa isagoo maqlay inta la hadlo oo meelaha tiktok wax la iska doobo gorta lacag la qaata lacag la helaa waxaas uun buu maqlay Soomaaliland ma yaqaan
maba arago berigay shaqayn jirtana ma wiil yar buu iska ahaa maba yaqaan halkana waa sida looga sheegay oo looga sheekeeyay berigii dadka nin walbii quustay dhulbaahanta jilcay oo nin walbii Somaliland iyo Puntland iyo meel isu dhiibay meeshii quusan weyday way halkan iyo halganka dabada haysay dabageliska u noqotay bas odayaashu sheegeen taasna odayaashii warkoodii waxba ku noqon maayo odayaasha sheegay waxaan ku darayaa magaaladani waa magaalo weyn waxay ku fadhidaa dhul aad u baaxad weyn bay xukuntaa waxa ku yaala ceelka durdurka ee ilaama iyo marka dhulka baadka iyo biyuhu ay yaraadaan ilaama iyo awrboogays intay xukunto ilaa iyo sarmaay laga soo arooro ilaa iyo soolasha oo intaas soo xoolaa isugu yimaadaan hadir ceelka markii hadir saacaddan joogno marka la tago xoolaha hoganaya ama dadka ka cabaya ama ummadda joogta aad wax la koobi karo ma waxay xukuntaa magaalooyin badan oo ilaa 5 magaalo hoos yimaada oo ay xukuntaa magaalada intaa la eg waa wax la yaabo in maanta ammaankeedii oo maalin kasta odayaashu waxay ii sheegeen 4 dhacdo halkan ka dhacday 4 taba ciidanka ku jira difaaca ku jira oo jooga guumeys baa intay soo baxeen wax ka qabtay oo taadar raad wiilka yar ee khaldamay u dambayso waa wax la yaabo in maanta iyada oo magaalada ay maamul ka tirsan tahay oo qooyo bari uu shaqeynayo oo xoog leeyahay oo magaalada ay tahay magaalada taariikhiga ah oo taariikhda ku suntan halganka in la yiraahdo maanta booliskeedii au ama yar yahay ama aanu shaqadiisu aanu laga shaqaysiin oo aanu gobolka iyo degmada ka shaqaysiin oo wax la yaabo weey waxaan leenahay waxaan aad u jecelahay magaalada Dalaaleeg booliska ugu yar ka shaqeeya waa 20 godaal ka shaqeeya sarmaayo ka shaqeeya oo ka shaqeeya magaalooyinka laga ku dhow ama isku deegaanka yihiin waxaan leenahay booliska waxaan rabnaa waqooyi bari magaalada inuu soo kordhiyo in magaalada boolis shaqeeya oo reportka subax walba la kala qaato oo laga shaqeysiyo shaqeeya oo tirada magaalooyinka Laaleeg ciidanka booliska shaqeeya mid leeg magaalada la siiyo oo way bareysiyaan hadir ceelka wuxuu u baahan yahay boolis ka shaqeeya xoolahan cabaya iyo waxan cabaya iyo hayaankan iyo ummadan meesha isugu timi hal qof ma dhex taagna hadir hadii wax yar ka dhacaan ciidan waxa ugu sokeeya ciidanka jooga meesha la yiraahdo salinta jooga kaasuun baa imanaya marka hadii ay waqooyi bari sidan ku eegtaan kaasaanu keenin halka ka shaqeeya waxay noqonaysaa isna maalin walba halka gaaris ka soo baxa salinta inuu halkan wax ka qabto oo dhacdaha ka dhacday oo halkan yimaado marna uu difaaca ka galo salinta saas suuragal maaha waxaan leenahay waqooyi bari booliska magaalada waxaan rabnaa in loo soo kordhiyo in booliska magaalada laga shaqeysiyo oo la dhiso in tababar la siiyo oo tababar loo furo la tababaro in seminar loo furo in saraakiisha booliska ee la socdan la tababaro saasaan rabnaa rugtii caafeen booliska waxna waa nooga bilaaban yihiin wixii kale hadin la ku darsanaa ku darsanayna oo diyaarsanayna laakiin waxaan rabnaa horta boolis magaalada ku filan magaalada baaxadda leh oo intaas magaalo xukunta inaanu helo way bartaasaanu ka rabnaa annaguna halgankii anagu sidii bir aanu u bilownay xilligii halganka la bilaabay baanu anagu wali ugu taaganahay anagu xaqeega isma bedelo waxaan leeyahay intaas saaga isu kaaya keentay aadna wuu mahadsantihiin waqooyi barna fariintaas aanu u direynaa in boolisna loo soo kordhiyo boolisna loo keeno oo naloo tababaro waan salaam ya salaam alaykum